السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحبي أنيقا حبي على إدها إن إما تقانا لكن إن وحن أهاي حق عفمتك سجيدة إن حتى نحن برتا حلي رادان عفمتك بوشة أما public health وحن ربا إنان إن مال إذن كتوسو أرنتا walaasheen ku dhacday iyo Safiyo Tusmo. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Horta arrintaanayto waxaa rabaa in idin dhaho waa maadaama ay walaashin ahayd qof public figure waxaa la yiraahdaa saameynta ay dadkiina ku mashquuleen laba saameyn bay leedahay. Saameynta horta midna waxaa waay midda shaqsiga ku dhacdo ah gabadha wixii ku dhacay individual, midna waa public. Arrintan horta waa in loo arkaa issue oo maaragtay ilaahay inaa cashar ku qaadano uu noogu talagalay. Marka waxaan inta dhana Soomaali haddaan nahay public health I mean like mental healthiga hal fiiriyo. Mental health kama hadalno mental health maybe waa inaa casharka weyn oo noogu jiro anaka as a public health issue waa mental healthiga inaan ka fiirino waay oo aan kuwaana qaadano. Marka maadaama wixii hore dhan uu ahaa video clip iyo wax assumption mala la gelinayo waxaan rabaa inaan idinku baraarujiyo ama aan reflection ka sameyno walaashin khudbadii ugu dambeysay ilaa khayrasi ay soo duubtay. Wallahi aad baan uga murugooday dhibaatada ay sheeganayso. Waxaan rabaa inaan idinkala macneeyo analysis idinku sameeyo aan fiirinayo issue-ga maxaa waaye dhibaatada jirta maxaa waaye sida maxaa u baahan in la kala saaro iyo maxaa xal u ah iyada iyo annakaba marka horta haddii aan ka hadalno hadalladeedii waxaa ku jira waxyaabo badan oo mental health ay taabatay sida aan lensigan ka fiirinay diiraddan ka fiirinay mental health issue baa ka jira ama isaga ha hayo ama iyada ha hayo. Laba qof waxaa is helay mental health issue hayo wixii ka dhacayn hadda wixii ka dhaco hadda lagu mashquulsan yahay. Horta waa ogtiin inuu anaga dagaal sokeyna soo maray in displacementna soo maray waxyaabo badanna soo saameeyeen. waxaa rabay inaan dhaho horta walaashay dad badanaa waxay dhaheen hadal laakiin way soo hadashay maxaan ku sameynaynaa waay hadalkaas marka kaga faa'iideyna haddaan dadnay. Horta waxaa jiro waxay sheegatay inay qofta aysan ahayn garanin meel looga yimi. Horta shaydaan iyo naf iyo waxaa jiro iyo maaragtay mental health. So waxaa ogaataan horta haweenka markay certain age gaaraan chemical imbalance maskaxdana u qabtid inaa adiga wadid ama haysid ama aad ka mas-uul tahay ama aad meesha rabtid marin kartid waa cad hilib waaye oo ku kala socdo chemicals yaryara ku kala socda. Hadday wax yar ay isdaba maraan adoo si kale u dhaqmaysa lagu arkaya oo dadka xitaa kugu diimay oo adiga isku diimaysid oo markii dambe isolation isku ridaysid oo ama gooni noqosho iyo cilla ciirsal adoo dadkii ku dhex jira dana cilla ciirsal. Waxyaabaha badan ay ka hadashay bay ahayd inay cilla gabadha haysay oo ahayd ninkan inuu cilla ku helay oo dadka inta saaxiibo wixii ku meeraysnaa dhan aysan ka warhaynin ay gashay. Marka horta walaasha waxaan rabaa inay caafimaadkeeda ay xoog saarto ay maaragtay ay chemical soo fiiriyo yacni dhibaatada dhibaateynaysa oo haysay inay nafteeda ay really help raadsato because caafimaadkeeda aan walwalsanahay. maxaa kaloo jiro hormonal imbalancegaas waxaa jiro menopause waxaa laga yaabaa early menopause inuu ku dhacayo. waa ogtiin haweenka waxyaabana saameeyaa jiro sida caadada bish markay nagu dhici rabto markii ay nagu dhici rabto
menopause markuu imanayo waxyaabo badan oo waxaa jira jirkeena iska bedelo. waxyaabaha markay isbedelaan marka sibaan u dhaqmaynaa, ama marka waxay noqonaysaa qofka inuu dhaho awareness-kaas uu leeyahay saameynta ay nagu leedahay. iyo Where's my pencil? Well, yesterday I was using a pencil. Where'd it go? so that's one thing. So hormonal imbalance-gaas jiro marka marxalada isuula kulantay u eg tahay iyadoo waqtigaas ku jirtay iyo wiilkaanu haleelay gabadhii. markuu haleelo waxay u eg tahay waxaa ka dhacay relationship cajiib ah oo waxay psychology-ga ku tilmaamaan codependence. waxayba ku leedahaybo xitaa haddaa maanta dhan bay sidii ilmo u haysaa oo isa sabaysaa. wuxuu leeyahay waan isdilayaa, mar kan baan samaynaa, mar wuu canaanane wuu isku. marka iyadana waxay qaadatay role ah caregiver camal inay u noqotay iyo codependence. ma ahayn oo relationship oo partnership ku socdo, wuxuu ahaa waxaas codependence. marka codependency-gi meeshii marka ku xanaanaynaysa isagii isolation cidna uma sheegto, keligeed bay ku noqotay. waxay u noqotay qof cirkii dhulkii u kala haya. ilaahay waa dadka cirkii dhulkii u kala haya. waxaa idiin sheegaa qof hadduu dhawaa isdilaya ama kanaa samayna, horta waxaa ogaataa waxaas codependency-ga la dhaho yani qofkan adigii ku saaran qof weyn oo ahayd inuu meel mara adigii kaa dhigtay inaad xanaanaysid maskaxiyan, caqliyan iyo muxuu ahaaye nafsiyan. waxay aataba aad maamulaysid kaa dhigtayba inaad shaqaale u noqotid. financial buu iyada dependent ku noqday, wax kasta waa inay ka bixisaa. wuxuu dependence ku noqday waxay dhahaan emotional baa ka muuqatay. wuxuu dependence ku noqday inuuba dhahaba waa isdilayaa hadda oo accountability-gi naftiisa inuu iyadii saaray buu yiri because of you. iyadana guilty waxay u ogtahay qof aad u naxariis badan. marka taas shucuurtiiyaa qaaday iyo qalbigii way kala garan weysay meelay joogtay. qalbigana waa cajiib. qalbiga waa cajiib. taas waxa nooloo dhahayno waxyaabo badan. ilaahay muu dhihin waxyaabaha dembiga waxyaabaha laga barya ilaahay ka mid tahay. horta by the way qof awood u leh ma jiro inuu dembi ama uga joogo awoodiisa ama uu janno ku galo awoodiisa, ma jiro. waa cizada ilaahay. waxyaabo badan oo diinteena nafartana waxaa waaye ha u dhawaaninaa la dhahaa. ma lagu dhaho iska celi xoog yeela. neeba qur-aanka ma arkaysid laa taqrabu zina, dembiyada ka fogaada. so distance inaad samaysatid waay. allahuma baacid baynana wa bayna khataayaan kama baacadta bayna almashriq walmaqrib. ma ahayno distanceigaas. unfortunately technology ayaan tan heesanaa. distancegii is gone, boundaries are gone. maxaa jirto taleefona ama kula hadlaysa. waxay xitaa ka hadlaysay inuu ninkan video kala hadlay uusa wax kale uusa ogolayn, which means boundaries buu jijibiyey oo control power buu overpower buu overtime ku noqday. wuxuu usoo galay si saqiirnima oo codependency. overtime codependency waxay isku bedeshay power shift. power shiftigi asaa qaatay. marka ujeedaa power shiftigi markuu dhacaayo halfway buu dhacayaa to the point ay gaartay markii dambe inaysan powerkeedii ka tegay. waxaa ogaataan ilaahay baa horta ina alquwata lillahi jamiica, laakiin powerka lagu sheegayo ama awoodda lagu sheegayo qofka leeyahay waa awood ilaahay bini aadanka dhan ku uumay. waa madax banaanida, waa fikradaada, waa inaa madaxa ku socotid. waxaana ka mid ah ilaahay khulafo inuu naga dhigay leadership role inaa haysano. yacni adduunkan inaa responsibility leenahay, inaa accountability leenahay, ina capacitygaas waan leenahay. but at the same time capacitygaasna way dhumi kartaa. it's not wax oo u qaadanayna ma aho awooddaasito aan u qaadan. taladaas iyo tayadaas uu ilaahayna siiyo khulafo nooga dhigay maaha waxaan u qaadan karno inay weligeed baaqita. waa wax haddaanu xanaanayn, haddaanu noolayn, haddaanu daweyn
nala ka qaadan kara waaye. Marka qofka bini aadanka maadaama hadda technology soo baxdo luuqa lagu soo galayo oo inta lagu soo galayo oo maanta dhan qof uu ku entertain garan haddaa is aragtid iska dareentid inaad ku dhib aad ku dependent ku tahay inaad maanta dhan qof wacdid ku qabanayso sidii shaahi ama qof la hadashay ama uu qof maanta dhan uu kaa shaqo kaa dhigto si kasta saaxiibka adduunka u ahaado waa inay boundary leedahay mana ku diimaayo laakiin waxaan ka wadaa khaladaadkaas oo cashara ani nafteeda xitaa aan everyday iskula xisaabtama waayo waqtiyada technologyga hadda soo baxday oo qalbigaaga at stake ah caafimaadkaaga at stake ah qof bini aadan kale oo ilaahay baan addiction ku nahay qof kale inuu kaa qaato qalbigaa kaa xado wadnahaaga kaa xado naftaada kaa xado waa wax dhici karaya si easyna ku dhici karaya waana public health issue vulnerable time aa laga yaabaa adoo ku jirtid sida gabadha ka muuqata hadalkeeda waqti eed aada u daciifsanayd nafteeda laga yaabo inay daciifsanayd maankeeda daciifsanaa oo mental health hayse miirkeeda daciifsanaa caafimaadkeeda daciifsanaa baa la haleelay bay arrintu isku beegmatay marka oo waxyaaba ay ku diimaysay ka mid tahay iyada laftirkeeda ay isla yaabanta marka walaalay horta ha isla yaabin iscafi horta iscafi adi naftaada iscafi waxaan ogaataa ilaahay inuu in allaha yaqfiru dunuuba jamiica inaa ogaataa rabaa naxariistaasiyto walaalay inaa ogaatid maxaa kaloo rabaa inaa ogaatid inuu maaragtay adiga hadduu ilaahay xaqiiqdaada ogyahay inaa ku samirtid xanuun weyn baa ku haaya adoo weliba waqtiga adig ku jirta ay tan kuugu beegmatay haddana tan kale kugu sii beegmatay marka ilaahayaa ku jecela aniga arkaa inuu kuu dembi dhaafo waxbuuna dembi kaa leeyahay meelba ku wataa isagii adiga cilaaqaadkiina anu waxaan dhihi lahaa walaalay waxaan muusigan isaga tag naftaada maaragtay healingal therapy raadso salaatuleel kusoo jeed waxaan rabaa inaa u aragtid positive qof kasta oo dembigaaga oo maslaxadaada ka shaqaynin oo dhibaatadaada ku mashquula safiyo waxaa ogaataa inuu dembigaaga meeraayo adduunku ilaahay damca inuu kugu meero walaasheey yaa wixii dhacay marka qaado una arag sidaas isbir waxtase waxaa xitaa aad ka hadashay caaisha wixii la mariyoo kale baad isla agdhigta waxaana tiri iyadu waxay haysatay qur-aanka u hadlay ani ma haystin marka ilaah baad haysataa abaayo ilaah allahu baaqii marka abaayo adiga ilaahay haddaa isxog ogtihiin ku samir dhulka maaragtay qabso sujuudana madaxa ku dhufo ku dheji dhulka isbir way wiilka bara way kuu fiicnaan doontaa waad gudbi doontaa tan ilaahay baa waa dhankaa leh isaga u carar waxaa kaloo warba inaan dhaho marka waxaa kaloo hore inaan dhaho ma helaysaa walaashay waxay dhahaan closure ama inay arrinkeeda dadku waxay ku waxaan soo afjar maybe afjaris ma jirto for her it's open waxay ku tahay dhaawac weligiis furnaanay laakiin wuu dhaami doonaa sidan InshaaAllah ilaahay baa bogsiinaya waxaan kaloo rabaa inaan dhaho ilaahay ha ku bogsiye qalbigaaga also that was the aspect of how maaragtay qof empathy ay tahay naxariis badan in a role of codependency ay ku jirtay oo qof waxaa ogaataa bini aadan si kasta waxaan ahaa qof kasta dhibaatada haysta aan la seexan waayo la joogi waayo la jiri waayo caregiver laakiin maalina isjoojiyo waxaan dhahay xubbi allahu raxmaanu raxiim yaa ilaah muxuu raxmaan u yahay muxuuse raxiim u yahay hawshiisa asaga baa haysto adi wixii aa wax ka qaban karti ka qabo qof kastoo dhibaataysan inta u qaban karti u qabo inta u qaban karnina duco ugu bedel waxaan rabaa walaasha Safiyo iyo dadka gabdhaha wanaagsan iyo dadka wanaagsan oo jecel inay qof kasta dhibkiisa gacantooda ku qabtaan
ilaahay baa qof kasta dhibkiisa gacanta ku haya. Ilmahaaga aad dhashayba anytime lagaa qaadi karaa. waxaa ogaataa hadda anytime dhibantid in allahu baaqi ilaahay baa u joogo oo xitaa keerkooda siinay. waxaan rabaa inaan dhaho nebi maxamed sal alay wasalam hooyadiis aabihiis khayru khalqullah buu ahaa. ilaahay qofka u jeclaabay ahaa. hooyadiis aabihiisna asoo 6 jirnay dhinteen. qof kastoo keer u ah wanaag u ah waalid u noqdana geeri baa ku imanaysay. haddii qof ilaahay jecel yahay loo daynayo dad inay howlihiisa u kala haayaan asaa loo dayn lahaa. marka waxaa ogaataa ilaah baa cid kasta howlahooda u kala haayo, naxariistiisu adduunkana ku socdaa. marka waa wax ay ani cashar ku qaatay nolosheeda ahayd. anoo nolosheedii meel kastoo wax ka jabaan reaction caawi kankaga. marka dambe adaa meeshii ku dhammaanaysid. waxayna u egtaa qof aad u qalbi fiican oo dad aad u soo caawiso naxariis badana iiga muuqata aniga meeshan. weliba gabadhan waxaa dadka oo artska maxaa ahaayo xikmadda iyo gabayga iyo balaaqada dheer weeye. marka waa deep person weeye. qof aad u maskaxdeeda meel fog oo fiish maybe waa dadka aad kana u dareema. marka InshaaAllah ilaahay gift uu ku sii waaye waa naxariistiisay ka mid tahay. laakiin naxariistiisana waxay u baahan tahay inaa xadaysid oo maaragtay waa tixtaalir haddaa wax bixina sadaqaday ka mid. dadka waxay u maleeyaan qofka markaad charity wax bixinaysid lacagta bes. waa timekaaga, waa hadalkaaga wanaagsan, waa naxariistaada, waa waqtigaaga, waa xoogaaga aad ku caawisid. marka waxaasoo kale dhan sidii aad lacagta u bixisoo kale waa inaad uga fikirta. lacagta waxaa lagu leeyahay charitigii oo physicalka baa lagu leeyahay dhiib, laakiin ha iska dhigin kalma yacni to the point adigiiba naftaada harm ay dhibaato u keento ha noqonin. marka haddii ay caawinayso, haddaa xitaa qof caawinaysid si sadaqa ah, haddaad timekaaga ku bixinaysid, haddaad ku bixinaysid waqtigaaga, haddaa energy buu leeyahay. ugu qof kasta energy buu leeyahay. energy depletion, energy gu kaa dhamaanaya ya. marka waxaasoo dhan waxay ku noqonayaan xad oo maaragtay aad waxyaabo lagaa gurbisan karo adigii aad empty ever soo istaagi kartid baa dhici karta. ilaa adigii xitaa is caawin karin oo aad baralaata biisi kaani dhihi jiran aad noqotid oo qof kale uu kaa faa'iideysto oo xaasidkii jira uu ku yimaado oo meesha shayaadiinta kaa faa'iideystaan. iga raali ahaado. so anyways waxaa rabay inaan dhaho marka horta mental health waa issuegan yarkana intaa kama maqlayay clipska. waxaan maqlayay inuu xoogaa wax u baahan yahay like sibuu u fudud yahay. anger issue buu qabaa, temper wuu xanaaqaa, caro badan baa degdeg u qabaa. saan ka dareemo waa clipska iyada sida ku hadashan waxay tiri way sheegtay inuu xanaaqo uu cirka iyo dhulka kala galo. xanaaqa waliba se u describe garayso because Safiyo I think waa qof dadka gabiyo waaye so deep words isticmaasha se u cabirtay picturekay naga siisay wow and video call buuna ninkan ku khasbaa inay ku aragto experience kastan ku hesho. marka waa ka dareemaysaa xadkaas iyo argagaxa ay ku samaysay idin nafteeda oo ka keenaya inay dadamis noqoto. dadamis imanaysay. marka mana ku diimaya isaga laakiin waxay u egtahay some wellness baa ka maqan oo screwyaal baa si ka ah mi fahantay iyo maaragtay iyo marka waxaa cad marka iyo xitaa suu ula hadlaayo iyo iduu caadi ula hadlaysana isna notch kaluu saaran yahay. isku wave ba maba ahaba, isku hirba kuma socdaan. hir kalu ku socdaan, hir hoose ku socotaan. marka maba laba qofoo isku qalmin yacni se isku dhaqankooda xitaa ma aha. waxbaa khaldan, weyn baa khaldan ya. iyadana waxaa ku dhacday hooyanimo inay hooyoba u noqotay technical sida
ka muuqata naftiisiibu gacanteeda yirahdaa ka mas-uula way dhacda taas. marka taasna waa wax aada looga hadla waaya psychiatrica, codependence iyo narcissism, labadaas baa ka muuqata meeshan. dadka caadigana ku dhacanya waxyaabaha waalnida kala dariiqyada lala maraa, laakiin labadan waa waxyaabo saameeya dadka noloshooda, weliba xiriirada relationshipska aada u saameeyaan. naag aada uga hadashaa jirta youtube oo la dhaho Dr. Romani, something like that. Very amazing. I will recommend everybody to listen to that because haddaad tahay qof naxariis badan oo waxaa jiro xaasid kaa faa'iidaysana oon ku aabayeelin oo naxariistu ka maqan tahay oo maaragtay shayaadiin insi wal jinni ka mid yihiin. marka oo waxaa kaloo jiro marka walaasha waxaan dhihi lahaa yes, way xanuun badan tahay wuxuu ku dhacay. ilaahay ceebtaada ha asturo. wax maanta oo ahayn hadal la isdhaadhaafsanaa iyo hal masawiro maaragtay compromised ah mooye wax maanta walaahi weynoo wax aan maanta aan ku dhihi karo naftaada ka qiimo badan baa dhacay ma dhihi karayo. naftaada baa ka qiimo badan. qof muslimaana tahay, maalin kastana oo ilaahay caabudid wuxuu ku umayna laba maalino xun bay ka khayr aada uga khayr badan tahay. marka maalmahaaga khayrka badan ku mashquul, bil khayr qabtaa lagu jiraa, isagana iska cafi walaale cafi. haddaa cafisi naftaada baa ku caafimaadaysa. let go. adi naftaadana cafi, ilaahayna ku dhaaf, ilaahayna tala saaro, ilaahayna ku caraf. ilaahay inamaa ashku bathi wa xusni ilallah buu yiri nebi yuusuf aabihiis marka intay cileeyeen been ka dharjiyeen wiilkiisii ay dhaheen wuu dhintay, wuxuu lintii ka joojin waysa wuxuu yiri yacni murugadeyda ya iyo silceega iyo qalbigayga meesha maanta aalo ilaah baa u sheeganaya. marka Safiyo walaalay, ilaahay uga ashtikood xusnigaada maanta loo gashay iyo bathni, ilaahay uga ashtikood InshaaAllah. okay. hadda wixii ka dambeeyana fresh 12 u dambeeyana waxaad ku soo aaday waqti aad u fiican oo healing fiican ku sameyn kartid. wixii kugu soo dhacayna uu arag wax aanan qariib ahayn oo dhaca. taada uun waxay noqotay mid public ah. way dhacaan oo ummadda arkaysa way la wada socdaan. qof kasta waxbaa ka soo gaaray qof kasta waxbuu soo experience garay adduunkan laakiin midaada waxay un kaga duwan tahay public bay noqotay. inta haddaa saa u aragtid waxba waad isdareemaysaa wallaahi bilaahi oo taala waxa kugu dhacay oo qofka shaqsiga aad la dhiil garaysa ama situationka aad la dhiil garaysa ama ma aha wax cusub, waa wax soo dhaca. way dhacaan wayna dhici doonaan. adib maxaa uga duwantay maadaama public figure ahayd iyo wixiina la record garay taa unbaad uga duwantay. taasna isbir waxtasib. waxaan rabaa inaad opportunity ka dhigatid oo u aragtid ma waxbaa iga sheegtaha clean ii shaqeeyo shaqaalo permanent yaaba heshay ani waan jeclahay gabayadaada xikmadaada wado gabayada iyo waxaas. tan kaloo music iyo waxaan dadkan aan aad markii dhibaato ku aragd aad ku dhex jirto oo cidladii kaa bi'ina dad mu'miniina raadso walaalay, dad raadso muxuu ahaayo aad ku kalsoon tahay oo cidlada kaa bi'inaya oo ilaahay dartiis u jeceshahay oo wanaagaaga ka shaqaynaya. dadkaas ku carar. 1 iyo 2 adduunkan haddaa ka hesho intaasaa kugu filan InshaaAllah. hay salaam calaykum.